قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. ku jirnay kitaabkii alwaajibaat almutaxatimaat lmacrifa. waxaan qaadanaynaa maanta insha allahu tacaala shuruudu laa ilaha ila allah. duruusta had iyo jeer ereyadii hore aan u sharaxno dib ugu soo celin mayno. waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala ereyadii hore aan u sharaxno inaan soo gaabino insha allahu tacaala. waxaan malaynaa waqtiguna waa nagu yar yahay inoo haray, waana masaa-isha ugu muhiimsan meeshaan oo kale. shuruuddii kelimada tawxiidka. kelimada tawxiidku shuruud bay leedahay. mualifku wuxuu leeyahay shuruudu laa ilaha ila allah hada mabxathuhaa oo kale weeyaan. laa ilaha ila allah shuruudeeda meeshii lagu baarayay weeyaan. waxaad ogtihiin erey kasta ama waxuu leeyahay xukun kastoo sharciga ahi wuxuu leeyahay shuruud shaaricu u dejiyey buu leeyahay. weysadu waxay leedahay shardi, waxa weeyaan salaadu waxay leedahay shardi, sujuudu shardi bay leedahay, rukuucdu shuruud bay leedahay, soonku shuruud buu leeyahay, maaragtay sekadu shuruud bay leedahay, xajku shuruud buu leeyahay. shay kastoo shaarici uu soo dejiyo ama sharci lagu cibaadaysanayo waa in maaragtay loo sameeya qaab asaga lagu yaqaano, lagu sooco oo ku ansaxo waa inuu jiraa. dhinaca kale waa inay wax buriya ay jiraan, nawaaqid ay jiraan. waana maaragtay masalada tawxiidka ayaa shuruudeeda saas oo kale weya. waxaa dhici kara shuruudda in la yidhaahdo yani qur-aanku ma oranin shardi kada shardi kada shardi kada, laakiin dadka hadalladaaso kale ku hadla waxa weye hadalkooda cilmi ma aha. liannahu diinta islaamka shuruudda ka shardi kow shardi labo maysan oran. lafdi waxaa la yidhahda shardiguna waa masala istilaaxiya loo isticmaalo walaa mushaaxata fi listilaax. si dadka marka diinta loo baro ayaa waxaa keenan culimadu inay isku aadiyaan oo istinbaadaadkooda kala soo baxaan nusuustii. laakiin arrinta dhammaanteed waa naska qur'aanka iyo sunnada ayaa unbaa maaragtay lala soo baxaya. kitaab yar marka laga alifayo kan oo kale ah waxaa loogu talagalay taqriibu lcilmi ila annaas o taqriibu lcilmi ila tulaab, in cilmiga loo soo dhoweeyo tulaabta maskaxdooda loo soo dhoweeyo. masalada loogu soo dhoweyn karana waxa weeyaan waa tandiim almacluumaat, macluumaadka in la nidaamiyo maarta. fikradda markaan rabo inaan fikrad qof u sheego laabudda usalsil fiiha inaan maarata macluumaadkaas aan nidaamiyo si aan qofka aan ugu soo dhoweeyo. wa ilaa cid walba ma awoodi karayso inay istinbaadaadka iyo ay samayso, ma awoodi karayso. ciddii oo maarata ilaahi subxaana watacala u furay iyo culimada ayaa awood u leh maarata inay istinbaadaan la soo baxaan intay dhex galaan kitaabka iyo sunnada. maxaa shardi ah, maxaa rugni ah, maxaa sunno ah, maxaa waajib ah, maxaa ma garanaysaa. ayaga unbaa waa kala shaandhaynayaan culimadu, ma garanaysaa. sidaa darteeda haddii aysan jirteen arrintan shuruudda iyo kala shaandhaynta shay kasta booskiisa la dhigo waxay noqon lahayd inay isku dhex yaacaan, fawda ay noqon lahayd maarata. marka fawdadaasi dafcan can hadihi alfawda alcilmiya si loo meesha looga saaro ayaa waxaa la tandiiminayaa shuruuddii wixii islaamku sharcigu shardi ka dhigay, wixii uu waajib ka dhigay, wuxuu rugni ka dhigay, wuxuu sunno ka dhigay oo waxba u dhibaynin maaragtay cibaadada maarata asalkeeda intaba waa la nidaamina. marka kelimada tawxiidku waa min acdam diin ah, diinta meesha ugu weyn ah. kelimada asalka ah waxay leedahay shuruud baa u leedahay kitaabka iyo sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam. saad u jeediin mualifku toddoba shardi buu maaragtay soo kaxeeyey. waxaa dhici kara shuruud kale in lagu daro, waa dhici karaysaa oo aan la oran waa toddoba keliya ah. waa annutqu bishahaada oo kale hadda ku soo darinin, shahaada lagu dhawaaqo laftigeeda inkastoo dimnan ay ka muuqanayso. laakiin shuruuddan toddobadaah waa shuruud kitaabka iyo sunnada ka muuqan karaysa maaragtay oo waadix ka ah kitaabka iyo sunnada. saa darteed ayuu bilowga oo dalka dulaaba cilmiga u soo kaxeeyey. waxaan kaloo muhiim ah inaan ogaano shuruuddan markaan ka hadlayno waa shuruud qofka shaksiga asaga ku xiran weeyaan, laakiin ma ahan shuruud xagga xukunka ah. waa kala duwan tahay inaad xukunka shuruud laga dhigo iyo inay qofka asagu caqiidadu ku badbaadi lahay iyo kelimada tawxiidku anfici lahayd shuruuddeeda u ogaado. yani masalan markaan qofka tawxiidka u laqinayno ama qofka islaamka hadda uu soo galo ka jeegarayn mayno shuruudda toddobada. dhihi mayno hebel ma lagaa helay kow, laba waa laga waayey, saddex waa laga waayey. dadka markaan xukminayno shuruudda ka baari mayno. waxaa ku filan qofku laa ilaha illa allah maxamed rasuulillah ku filan. laakiin waxa weya ma yaqiinsan yahay, waxa weeyaan ma yaqaanaa, ma ka shakisan yahay tolow, waxa weeyaan taasi asaga rabbigiisa u taallaa.
rabbi bay u taalay asaga qofka ilaa xaqiiqadaas banaanka ay soo baxdo arrin maartay la tusay noqoto qofka asaga wixii ka dhexeeya marka waa masalada waa in la ogaadaaho masala dadka lagu imtixaamayo maaha labo ma ahan toddobada intaad xifdido xifdi kale inaad kaga filan tahay waa masala loogu talagalay adiga qalbigaaga inaad baartid inaad toddobadaani maartay aad ku sifaysan tahay iyo in kale say kaaga ansaxdo oo beri aad ilaahay ula kulantay subxaanahu watacaala kelimada tawxiidka adigoo maaragtay yaqaana inaad ula kulantay inaad ilaahay la kulantay subxaanahu watacaala marka way kala duwan tahay inaan xukunno iyo inaan maanaa shuruudan bay leedahay shuruudan waa shuruudii sixadii qofka uu ku garanayay weeyaan haddii qof salaad shuruud bay leedahay soo maahan weysaqaadku shuruud buu leeyahay dadka salaada dukada weydiin mayno horta yaa shuruudii maaragtay salaadaadu shuruuddaas ma leheed weysadaadu ma soo ansaxday intaas ma lagaa helay qofna oran mayno qofka asaga ilaahay u daynaynaa soo sax ma ilaahay baa garanaya inamaa naxkum bidawaahir wallahu yatawalla saraa'ir ilaahay yiri ma garanaysaa walaa taqulu liman alqaa ilaykum assalaama lasta mu'minan walaa taqulu liman alqaa ilaykum assalaama lasta mu'minan qofka haddii daahirka nooga caddaado islaamkiisu annaga waxaa u daynaynaa islaamkiisa daahirka ah masalaas waxaa la yidhahda marka xukunka daahirkaa la yidhahdaa ama xukunka xaqiiqada ah ilaahay bay u taallaa subxaanahu watacaala iyo sida u xaqiijiyo shuruudii kelimadii tawxiidka si u xaqiijiyo ayay u taallaa oo maaragtay laga xukumaya masalaasna waa tilmaami doonaa intaan ku dhex jirno insha allahu tacaala intaan ku dhex jirnaan tilmaami doona insha allahu tacaala marka laa ilaha illa allah toddoba shardi buu mualifku u sheegay maaragtay leedahay shuruuddaas marka waa iska hubi si aad iimaan saxan iyo tawxiid saxan iyo kelimadii ilahay kula kulanto subxaanahu watacaala aniga iyo adiga waxaanu kaga baahan yahay inaan iska jeegarayno inaan shardiga iga maqan maxaa si iga ah si ma garanaysa xaggee bay wax ka maqan yihiin inaan idhaahno maaragtay si ay qalbiganaga si fiican ugu dhegto shuruuddu marka hore tirinaya kabacdina wuxuu tirin doonaa daliilaadkeeda marjiceeda iyo asalkeeda ayuu u celin doonaa maaragtay mualifku raxmatullahi calayh marka shuruudu laa ilaha illa allah inaan idhaahno shuruudu laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah in la yidhaahdo ayaa mlaanahu kelimada shahaadada kelimada tawxiidku waxay ka kooban tahay labadaba ay ka kooban tahay oo asalka waxay in la israaciyo laa ilaha illa allah muxamadu rasuulullah oo labadoodaba inkastoo nusuusta uu soo kaxayn doono ee haddana maaragtay meelaha qaarkood isla socdaan waxay ahayd labadaba erayba maaragtay oo isla socda in loo turiyo liannahu shanta waxaan leedahay arkaanta shanta ah sidaa la og yahay nabigu laba isku tiriyey calayhi salaatu wasalaam lama kala saaro laa ilaha illa allah muxamad rasuulullah kalama maarmaan haddii mid la helo midda kalena waa inay la socoto haddii la waayo midkood ka mid ah midda kalena ansixi mayso marka waxay kamid yihiin arkaanta oo shanta ah hal rugni baa laga soo qaaday waa litalaazumihima waa inay maarata isku talaazumaan daraaddeed baa mid laga soo qaaday labadooda kelimada waxaa la yidhaha shahaada la yidhahdo waa midaas weeyaan mualifku wuxuu leeyahay meeshaan shuruudu laa ilaaha ila allah shuruud ay leedahay kelimada tawxiidka oo ah laa ilaaha ku xaq lagu caabudaahi ma jiro ila allahu ilaahay mooyaane af soomaaliga saasaan ku leenahay laa ilaaha ila allah hada jeer waa noogu soo laalaaban doontaa laakiin ogaaw waxay ka kooban tahay nafyi ihbaat siduu tilmaami doonona dhexda mualifka tilmaami doono kusoo celcelin mayno ha dhoweyto waan mari doonaa saano waqtigaa inagu yar laakiin waxaan leenahay ogaaw laa ilaaha ila allah saas mooyaane si kale kuma ansaxdo laa ilaha illa allah qur'aanka dhan waa ka buuxdaa axaadiista nabigana waa ka buuxdaa diinta islaamka dhammaantood mixwarkeeda weeyaan laa ilaha illa allah saasa nafyi ihbaat nafyigu waxa weeyaan waa in qofku wax alla wixii ilaahay sokadiisa la caabudo oo meesha ka saara waa inuu baabi'iya atakhliya uma taxliya marka hore waa inuu qalbigiisa ka mayraa wax alla wixii cibaado la caabudo oo cibaado la siiyo dhammaantood waa inuu qalbigiisa ka tuuraa oo ilaahay keliya soo reebaa subxaanahu watacaala usan lamaanayn waxa ku darinin ma garanaysaa marka isaan naqaano luqada carabiga laadaani waa tii naafiyatu liljinsi ah naafiyatu liljinsi marka tansib lism wa tarfacu lkhabar soo ma naafiya liljinsiga isimkeedu waa ilaah isimkeedu weeyaan khabarkeediina waa xaqun weeyaan marka laa ilaaha xaqun saas bay noqonaysaa ilaah xaqihi ma jiro ilaah cibaada mutaysta ma jiro ilaahay la caabudaha ma jiro laa ilaaha laa macbuuda bixaqin laanu ilaah bimacna almacbuud weeyaan marna bixaqin baa lalajeeri majruur qaarna waxaa la yidhahdaa marka lalajeer majruurkan waxaa ku tacalluqaya khabarka dabcan meesha ku jira hada jeer laada naafiya lijinsi khabarkeeda waa la xadfaa badana luqada carabiga waa la xadfaa marka haddaad doonto waxaad dhihi karaysaa laa ilaaha laa macbuuda xaqun mid xaq lagu caabudaha ma jiro ila allah ilaahay mooyaane subxaanahu watacaala ila allahdaas marka aad bedel ka dhigto khabarka aad ka bedesho maarta ila allah marka macnaheedu markaan leenahay laa ilaaha xaqun ilaah waxa weeyaan basharku waxyaala badan bay u yaqaaneen ma inkirayno waaqic ahaan inay jiraan wax la caabudo ilahay sugadiisa subxaanahu watacaala
qur'aanka ma garanaysa maa tacbuduuna min duunihi ilaa asmaa'an samaytumuha ma caabudaysa magacyaal aad magacaabateen wax kale ma waxaas magacaaba ha magacaawdeen laakiin ilaahyaal bay ku magacaabayeen waaqiciga kuwaas laakiin waxaan leenahay xaq ma ah dhammaantood waa baatil weeyaan waxa xaq ahi waa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa cibaado leh inaga cibaado la yidhaha u fiirso laftigeeda meeshaas waxa weeyaan maxaa cibaado la yidhaha waa inaad is weydiido si aad ilaahay keligii u siido subxaana wa tacaala waxaa cibaadooyinka dhammaantooda baryadu waxa weeyaan waa asalka cibaadooyinka weeyaan mana ogaataa ilahay baryada gacmaha loo taagto loo cararo waa asalka cibaadada nabigu wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaada calayhi salaatu wasalaam marka laa ilaaha waxaan leenahay ku xaq lagu caabudaa ma jiro ay laa macbuuda bixaqin ku xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah subxaana wa tacaala aw laa ilaha laa macbuuda xaqun ila allah jala wacala dalikum allahu rabukum alxaq ayaa fasiraysa aayadda qur'aanka ahta dalikum allahu rabukum alxaq inaan xaqa ka dhigno khabarka waxaa keenaya qur'aankaasi caadi ugu dhawaaqay marka ilaahay subxaana wa tacaala kan xaqa oo cibaada keligii mutaysta weeyaan cid kaloo xaq cibaada mutaysada ma jirto meesha waxaa ka garanaysaa inaan kelimada tawxiidka dadka qaarkood say u fasiraan aysan sax ahayn aysan ahayn laa ilaaha laa khaaliqa ila allah laa khaaliqa xaqun ila allah inaan la dhihinin ma garanaysa sax ergu laa khaaliqa sax cidka ma garanaysa laakiin nabi maxamed looma soo dirin dadka inuu ku yidhahdo laa khaaliqa ila allah cid wax abuurtaa ma jirto alla mooyaane maxaa yeelay masalada alla keliya in wax abuuro masalo agtooda ka qaran bay ahayd maarta masalada jadalku iyo muranku ka jiray maysan ahayn qur-aankuna in fara badan buu arrintaa u badiyey laa raasiqa laa mudabbira yani in la yidhaahdo ma garanaysa laa muxiya walaa mumiit in lagu fasiraa sax ma aha intaba waxa weeye gaaladu ma diidanayn xaqiiqata qur'aanku soo deganay waa ogaa ilahay inuu raasiq yahay wax arsaaqo ilahay inuu wax dilo nusuusta qur'aanka farahay ka badatay arrintaa ku saabsan inay garanayeen laakiin masalada la isku haystay waxay tahay ilaa xagga cibaada alloo keliyo ajacala alaalihata ilaahan waaxida arrintu inta la isku haystaas ahayd ma ilaahyaashii faraha badnaay ayuu mid ka dhiga way ogol yihiin ayagu haddii la yidhahdo ilaahay subxaana wa tacaala waa ilahya kale waa jiraan waxba muran kama aysan qabin in ma garanaysaa leanno aaliha bay ogolaayeen waxay diidanayeen ina ilaahay la keliya yeero subxaana wa tacaala waidaa qiila lahum laa ilaha ila allah yastakbiruun hadday fahmi lahaayeen laa ilaahu laa rabba ila allah hadday u fahmi lahaayeen kamaba diidanba masale aaminsanaayeen weeyaan masale ka diidi lahayen ma garanaysaa laakiin waxay u diidanayeen laa ilaha ila allah madluulkeeday garanayeen laa ilaha bimacna almacbuud inuu yahay macbuudka keligiis waa ilahay wax ka soo harayna waa shirki iyo kufri ilahay sukadiisa in la caabudo subxaana wa tacaala oo cibaado la siiyo ma garanaysaa masaladay marka meeshay maarata sartu ka quruntay meeshaas ahayd meesha laysku haystay meeshaas ahayd ma garanaysaa waxa weeyaan ilahay keligiis ilahay tawxiidka ku dhawaaqi jireen labayk way soo xajinayeen labayk allahuma labayka labayka laa shariika laka oranayeen eryadaas ma duugoobin maarta agtooda erya laga tegey maysan noqon laakiin waxay samayn jireen waxyaalaha qaarkood ay ku idaafay jireen oo waxay dheheen labayka laa shariika laka ilaa shariikan waaxidan tamliku wamaa malak shariik aad adigu milkiiso leedahay oo ma garanaysaa xoogaa kugu sii gaarnan baa jira ma garanaya qur-aanka dhammaan markaati uu ka yahay waladiina ittakhaduu min duuni awliyaa maa nacbuduhum ila liyuqarribuuna ila allah zulfa waxay caabudayaan wax kale ujeedadooda kama ahayn allaan ugu dhawaanayna marka masaladaas waa laabudda an takuna masala maxsuuma qur'aanka maarta masala go-an waa inay noqotaa rasuulku ma barin dadka allah magaciisa ma barinin rabbi magaciisa una u sharaxo ma ahayn way wada yaqaaneen rabbi iyo allah kula adabiyaadkooda ashcaarta jaahiliyada ah intaasaad ku arkaysaa ma garanaysaa ayagoo shiciradooda ka buuxaan oo ma garanaysaa ilaahay tilmaamayaan oo inuu koonka abuura tilmaamayaan oo shiciradooda jaahiliga ah waqtiga nabiga islaamka ka horreeyey laakiin akhri shiciradooda ma garanaysaa akhri dhammaantood ka wada buuxaan laakiin masalada diidanayeen oo waxay ahayd masala noqda ah ilaahay keligii ha la caabudo ayay maarata idaa qiila lahum laa ilaha illa allah yastakbiruun wayaquluuna aina lataariku aalihatina lishaacirin majnuun bay odhanaya maarata rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahyada maaratay fara badnaa hal mid oo ka soo qaaday kaasna wax la qaadan karo maaha waa waalaya waa hadalkiisu la qaadan ma karayo arrintu masala meeshaa ka joogto marka kelimada laa ilaha illa waxaa uga jeedaa ma ahan in lagu fasiro laa ilaha illa allah yani cid wax abuurta ma jirto alla mooyaane waxaan leenaha sax cid wax abuurta alla ma jirto lakin kelimadan uma jeedo saas uma jeedo ma garanaysaa waxay ujeedaa cid la caabudo aan allahin ma jirto ayib haddii ilaahay la caabudayona waa in lagu daraa muxamedun rasuulullah habka lagu caabudayona waa in nabi maxamed looga dambeeya calayhi salaatu wasalaam leannu cibaada weeyaan cibaadadani waa in looga dambeeya nabigeena calayhi salaatu saasay u kala haraynin hala caabudo ilaahay cibaadad keliya asagaa iskale subxaana wa tacaala laakiin hawadanada iyo saan doonno u caabudi mayno ilaahay subxaana wa tacaala iyo sidan awoyaashanada kasoo gaarnay iyo ayadaysaan ka dhaxlay saasay u dukan jirtay ayaday saasaa la oran jiray macnaheedu ma noqonayso waa inaad nabi maxamed uga dambaysaa calayhi salaatu wasalaam cibaadada aad alla caabudaysid oo wax alla wuxuu ku yidhahdona warkuu ku sheegan aad rumaysid wixii uu kaa reebana ka hartid wuxuu ma garanaysaa ku amrana aad fulisid
rasuulka alayhi salaam wuxuu ka rabana aad ka hartid waxa weeye asalku waa saas weeyaan ilahayna aad u caabudid siduu kula yimid nabigeena calayhi salaatu wasalaam kelimada kow waxaan bilaabaynaa shardiga koowaad ee mualifka uu soo kaxeeyey raxmatullahi calayh shardiga koowaad waxa weeye alcilmu bimacnaaha alcilmu waa oqoon weeyaan bimacnaaha ay bimacnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheeda waa in la yaqaano weeyaan qofku hadduu laa ilaha illa macnaheeda uusan garanaynin hadda waxaan macno lahay faa'iida ma laha ilahay uma soo dejinin subxaana wa tacaala diinta iyo tawxiidka iyo looma soo dejinin lafdigiisa in la barakaysto keliya looma soo dejinin waxaa loo soo dejiyey in macnihiisa la qaato la fahmo oo lagu dhaqmo reer bani israa'iil baa ilahay ku caayay inay fawaylu ladiina ilahi yiri subxaana wa tacala wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ila amaaniy waxaa ka mid a ummiyiin aan kitaabka wax kale ka oqon lafdigiisa kaliya mooyaane marka laa ilaha illa allah waa waajib qof kasta ku tahay inuu barto macnaheedu waxa ay tahay masala dhib weyn le ma aha ninka caamigaahi ma oran mayno laa ilaha illallah inta soo qaatid waa nafyi hadda naxwaha saan dhahayno waa laadu waa naafiyatu liljinsi oran mayno dheh ninka ma garanaysaa ilaanu ma yaqaano waxaas waa adabiyaad kale iyo maaragtay luqooyin kale waxaa laga rabaa inuu fahmo ilaahay mooyaane ilaah kaloo xaq lagu caabuda ma jiro ciidan allah in caabudi maayo intaasi koonka dhammaantiis waa fahmi karaya hadduu an alif baata yahay usan waxba dhiginin weligiisna wax baranin waxa weyan waa eray u fahmi kara bal dadka fitrada ilahay ku abuuray insaanka ayaa odhanaysa laa ilaha ila allah ilahay ku abuuray subxaana wa tacaala fitrat allahi alatii fatarnat kelimad tawxiidku waa ku cajiimanta basharka ilahay markuu abuuray subxaana wa tacaala basharka ayadoo ku cajiinan cajiinkiisa ka mid ah ayaa ilahay insaanka abuuray laqad khalaqna alinsana fi axsani taqwiim wa axsan caqiida asagoo ah kullu mawluudin yuuladu cala alfitra rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam asagoo kelimada tawxiidka yaqaano oo ilahay cadamaysa garanaya ayaa insaanka ilahay abuuray subxaana wa tacaala waxay ka mid tahay waxyaalaha khariizaadka ah ilahay oo ku dhex abuuray insaanka waxaa jira waxyaala fara badan oo khariiza ah markuu dhashayba ula dhashay ayaa jira maarta haddaan la fasahaadin lahayn wax kale ku imaan lahayn waxa weyan waa iska garan lahay insaanka markuu dhashaba waa yaqaanaa hooyadiis meeshuu ka nuugi lahaa ilahay baa ku aadiyey subxaana wa tacaala lugta asagoo maarata jiqaya arki maysid ama lugaha nuugaya arki maysid waa yaqaanaa meeshuu caanaha u doonan lahaa waxyaalaha ma garanaysa markuu ou xanaaqo inuu ooyo waa yaqaanaa maarta waa wax lagu cajiimay weeyaan cid bartay maarata waa la ooyaa ma jirto dadka barta soo sax ma markuu faraxsan inuu qoslo waa ku cajiimanta waxyaalaha ilahay rakaa'isu ilahay ku abuuray bay ka mid in lagu cabiro yani xanaaqa in lagu cabiro ooyin maaragtay in farxaddana qosol lagu cabiro yaa baray carruurta yarka marka dhashaanba waxa weya waa qalab ay isticmaalaan soo sax maa marka waxaa jira waxyaala fitraha oo ilahay insaanka maarata nazca iimaaniya iimaanka laftigiisu wuxuu ka mid yahay inuu khaaliqiisa doonto oo ilaahay ka sarreeyo oo cida abuurtay oo ma garanaysa awood koonkan ka weyn oo dhammaantiis ay jirto waxa weeyaan insaanka waa ku cajiiman tahay fitradooda ku jirta maarata marka dadka kuma aha hadduu caami yahay xataa kelimada tawxiidku wax ku adkaanaya ama qofka maarata ma aha maxaa yeelay fitradii baa ahayd fitradii haddii loo sii sheego cilmi loogu sii daro waxa weyan u daarmaysaaba marka hore buu ka fahmaya uga daarmaysaa marka kelimadu waa inuu fahmaa qofku ka cilmi ahaan cilmi waxaan leenahay caamka ayaa ku filan qofku mar alla markuu hoos usii galo macnaheeda hoos usii bartana waxa usii kordhaya habaat iyo sugnaansho iyo fahm iyo xoog baa usii kordhaya leanna cilmigu ma ahan hal darajo ma aha ma garanaysaa wa fawqa kulli dii cilmin caliim cilmigu waxa weeyaan waa darajooyin ilahay dadka siiya subxaana wa tacaala marka qofka waxaa loo baahanya inuu kusii xeel dheeraado sii galo si uu maarata macnaheeda si fiican oo u fahmo alcilmu bimacnaaha almuhim waxa weeyaan masala koowaad waa barasho iyo oqoon bimacnaaha ay bimacnaa laa ilaha illa allah bimacna tawxiid kelimada ilahay lagu keli yeelayo subxaana wa tacala macnaheeda in la yaqaano nafyan xagga nafyiga xagga diidimada iyo waihbaatan xagga sugitaanka waxa weeyaan nafyan wa ihbaat haddaysan dhicin khalal baa ku imaanaya qofku waxa weyan waa inuu nafyiyaa waxyaalaha la caabudayo faman yakfur biالطaaquuti wayu'min billah qur'anka wuxuu hormariyey markii hore nafyiga saas qur'anka wax kule kama tawxiid waa ka buuxda laa ilaha subxaana allah walxamdu lilah waa laa ilaha ila allah u dhigataa soo sax maaha subxaana allahi waa nafyigii walxamdu lilahina waa ihbaatkii weeyaan in ilahay laga hufo laga nazo wax alla wixii maarata aan u munaasab ahayn ilahay keligii loo sugo subxana wa taala xamdi oo dhammaantood loo sugo ma garanaysaa wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shayan waa laa ilaha ila allah wacbudu llaha walaa tushriku bihi ilahay caabuda keligiis laakiin cibaada kale cid kale hagu darina waa laa ilaha ila allah yani qur'aanka waxay ku jirtaa laa ilaha ila allah ayadoo usluubaad kala duwan oo fara badan
ku imaanaysa maarta ay qur'aanka dhan ka buuxda dhamaantiis awalaano hal usluub hadii loo keeno in lagu daalaa dhici karaysa ma garanaysa ayadoo kala duwan ayaa la keenaya usluub xagga kala duwan iyo asaaliib kala gedisan baa loo keenaya marka kelimadani waa inuu leedahay nafyi iyo isbaat haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad keliga cibaado u sugto aad caabudo asaga macnaheedu lagaa dooni maayo alla caabud muhiimadu ma ah waxa weeyaan waa keligiis caabud weeyaan waa inaad cidda kale oo la caabudo meesha ka saartaa يعني ujeedadu ma ahan alla in la caabudo kaliya ma aha laakiin waa cibaado ay la socoto ikhlaas asaga loo keli yeelo subxaana wa tacala wixii kalena meesha laga saaro saas buu ku leeyahay waa nafyi iyo ithbaat qur-aanka dhammaantiis waa noocaas weya labada rugni waa inay leedahay ama waxaa la yidhahdaa altakhliya wataxliya in ma garanaysa qalbiga laga saaro cid kale inuu ku xiraado ilaahay subxaana wa tacaala kabacdina ilaahay jala wacala cibaadadiisa iyo cadamadiisa iyo maxabadiisa qalbiga in lagu cabeeyo lagu shubo ayaa maaragtay ayaa loo jeedaa إنني براء مما تشركون مما تعبدون إلا الذي فطرني أساس لا إله إلا الله وكلوه يعني آيات كفرها بدن القرآن كالمدة استاذرت المؤلف كحوليه هي العلم بمعناها وإن لأقاذوا معناها لا إله إلا الله نفيا يعني من جهة النفي مثلا حق النفي وإثباتا من جهة الإثبات حق سقطانك لبضب وإنه وقفكم أو قرنيه أو نفيه على كسري إلهنا كري عبادة أو سبحانه وتعالى المسألة waa daliilkeeda uu noo keeni doonaa shardiga labaad mualifku uu maartay uu sheegay waxa weeyaan ashardu athani shardiga labaadi alyaqiinu waa in maartay qalbiga laga gooyaahi kelimadaas xaqnimadeeda yani yaqiintu waxa weeyaan waa iimaan iyo ictiqaad aan shaki lahayn insaanku yaqiinta waa kula duwan yahay yaqiintu waxa weeyaan waa shay boqolkiiba boqol aad hubtid oo laa yatadaraqu fiihi shakun basiit shaki yar uusan gaarayn oo kusoo dhacaynin waana maqsadka laga leeyahay caqiidada iyo tawxiidka diintu qofku markuu gaaro yaqiintiisu xoog yeelato shaygan ou yaqiiniyo yaqiintiisu leedahay markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala nuur iyo iftiin iyo ma garanaysaa u furaya kelimadaasi qalbiga ay ku dhegto laakiin dadka yaqiintooda waa kala duwan tahay noocyaal kala duwan dad shaki baa la geli karaa dadna ma garanaysa shaki lama gelin karayo leanna qofka cilmiga markuu usii yeesho kelimada tawxiidka ama diinta cilmi usii yeesho waxaa usii kordhaya yaqiin baa usii kordhaya ma dhahayno aan maarata qofku yaqiintiisu waa isku mid odhan mayno xataa bini aadamka qofka laftigiisa mararka qaarkood usa yaqiintiisu isku mid ma ahayn nabiyullahi ibraahim khaliiluraxmaan isagoo ah ayaa maaragtay markuu namruud masalada isaga dhex mareen ninkii adigu daaqiga ahay ama namruud ma kale hala yirahdee ninkii daaqiga ahay leannahu waxa weeyaan marka la murmayso mulxidiinta kuwa ma diinta aan lahayn marka la murmayso garaafyaa kugu dhici karaya haddii jeer shubhaadka ay maarata ay kicinayaan nabiyullahi ibraahim markuu kula dooday uu ku yiri ana uxyi wa umiita uu ninkii yiri ana waxaan noolay waxaan dilaa nabiyullahi ibraahim uga tegey misla ana uxyi wa umiit wuxuu la galay misla qoraxda la galay misla kale uga wareegay soo sax maaha markaasuu midii uu shaki yar gelin karo been baa hanoqon shaki waxbaa iska hantaata ha noqdee waa ka tegayo mid kalaan laga shakin karin buu tegay haddana xujadu waa saas waxaa fiican xujo qof aad arto in meel ka soo geli karayo inaad uga boodo mid kaloo maarata uusan imaan karayn aad u boodo soo maaha waxau yiri fa ina laa yaati bishamsi min almashriq faati biha min almaqrib buu maarata ka tagno masaladan laakiin waxa weeye ilaahay soo qoraad xagga ka soo saar saaka soo maaha soo baxda qoraad soo maaha adiga qor xagga noo keen hadaa rabbi tahay haday ma garanayso waxaad sheeganayso ninkii muxuu samayn karaa فبهت الذي كفر طبعا وحوي أفو كلا قاعدة وحوي وابو وريرة وحو شيء أبو جرواي مركون نوع عاس إدعته أنا أحيي وأميتيري نبي الله إبراهيم وحو تعلاضي إنه أجاده أركو أركو إله سبحانه حبوريه سبحانه وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى إذا وحى اتستا تذكر إن تيسد أنورين إله تس يعني ما إله أنورين وأوجيه لكن وحو ربا كإنه أركو كيفية لفتي يد ربا iyadoo ma garanaysaa waa kala duwantaa shayga in lagu sharaxo iyo in ma garanaysaa lagu geeyo laabka laftiisa lagu kaxeeyo ee lagu yiraahdo maarta waa kan shayga bal arag sida ma garanaysaa u sameeyna waxa weerana nabiyullahi ibraahim ma shakisnayn ونبي وحور ونحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام هذا إبراهيم شك وشك الله لا يقول حق الله لكن إبراهيم ما شك قال أولم تؤمن ساسا ولا يقول سبحانه وتعالى من الرمين قال بلى ولكن ليطمئن قلبي waxaan ka hadlaa masalada aliyadma ina qalbi xukusanaysa cilmigu inuu sii kordho yaqiintuna sii kordho shayga laysat almucaayanatu kalmukhaabara shay aad aragtay iyo shay maqashay isku mid maaha soo ma mar alla markaad cilmigaagu sii xoogaystoba shayga waxaa yamaanaya yaqiintuna kuu sii kordho ayaa keenaysa cilmi ahaan baa u taqaanaa shakiga meesha wax yar kaga baxaya
marka waa yaqiintu ma ahan hal darajo waa darajooyin kala duwan wayna ku xiran tahay hada jir awoodeedu isaad cilmiga ku xiran tahay wabitaali meeshaana yaqiintu kelimada tawxiidka waxaa laga rabaa qofku inuu aasaaska yaqiinta laga helo ee maartay uusan shaki yar iyo yani malamalo aysan gelinin maasha malamala gasho caqiido iyo magaranaysa iimaanka khalaas iimaankaas uu dhamaado sidaan arki doono maartay daliilka uu keeni doono marka masalada labaad waa al-yaqiin waa go'aan iyo maartay aaminaad dhab ah وهو كمال العلم بك فسر يقين معالي هذا شيخ معالي هذا وهو يقينك كمال العلم أقون لما يسترن ويان بها بالشهادة شهادة كلمة توحيدك إن قنت لما يسترن تهويان المنافي علم قاسو المنافي ماشا كسارية للشك والريب ململو يشك بماشا كسارية الريب والشك ولا لفظي واسلام قرنيسا لكن المنافي للشك شك وحويان ململو تساوي بين الطرفين لبعض عشيء لبعض قد يكون سوغنتها لبعض يصدرف اي كون سميهين اسلاده وانا دعي كرت ما دعي كرت تصح ما وشك ودعي كرت ما دعي كرت سان ما نقول سان ما قرنيسا marka waa inaysan wax la yiraahdo shaki yar meesha uu ku jirinin laana aqeedaba asal aqeeda waxa loo yiri la budda an yaqidaha fil qalb qalbiga waa inuu ku xiraa awsan muran soo gelinin waxyaalaha iimaaniyaadka la yiraahdo hadda markaan fasiraya swedishka iyo turur soo يترور ما العقيدة وأمثالها ما وشك هذا الشيء شك ويترور وشك وان ملاينا يا ويان مركا ما ويان ترون يترور مركا أنا مركا ترجمة يان ساس بيقول فسرها لكن حقيقة ما وحي قالوا أمين سنايان وما قرنا شيء قاني ما شرط شيء يعني وحلي لها تراب ما قال الحقيقة النسبية حقيقة والنسبي حقيقة مطلقة ما شرط ساس أمين قالوا مركا أرجع أيقا أديك أنا وحلنا هاي وحاشرت حقيقة مطلق جريتانك إلهي وحقيقة أن شك لهين كلمة توحيدك وحقيقة أن شك لهين لكن ترون يترور وحويا دمانتي وحويا ما شك سنة ويان معناته إيمانك رنت هاي ولا شيء جاي ما مركا لفتك وحافي عن إيمانك سلو استعمال هي كفي عن مركا حقيقة مطلقة حقيقة نسبي ما وحيالا قاركو ذكرنا ونسبي هالأعضاء لكن حتميات وحيالا قوان ومارت حقيقة وأن لهين ملا شرطة مقرنة وجود الله سبحانه وتعالى عباد الله كريم وليه جل وعلا كون كان الله إنه أبو ركلي سبحانه وتعالى عدا يسلا أبو رنين هذه حقائق المطلقة حقائق مطلقة وياه بالتالي ماشي وحرقنا إنه ليه هو كمال العلم بها كمال العلم علم ما يستر بها بالشهادة كلمة الشهادة علم قاس محينها ما يستر مخلينا هاي وإنه ماشي كسارة وحل هذا ملاك كسارة ماشي المنافي للشك والريب علم قاسو ماشي كبحينيا waxa la yiraahdo malo iyo waa dhici kartaa suurta gal weeyaan meesha inuu ka bixiyaa waa bisala labaad soo ma jamaa المسألة الثالثة مسألة سدحات وحويا جزاك الله خير مسألة الثالثة مسألة سدحات وحويا الإخلاص المنافي للشرك وإن قفكوا كلمات توحيدك يدين تدمانتي وأساس كده وحا وإن هي ضاعت وإنه صافية وإن اللي برحنين سومال إخلاصك وحي يكون فسران وارتا وحي يرادين وإن صافته صافي شيء صافي ما قفصون محمد جدنا وشيء أن برحنين caanaho kale hadii lagu keeno xoogaa yar lagu soo daro wax kale biyo iyo wax lagu daro iyo wax la mid ah maxaa la yiraahdaa waa balax wadama waa balax marka hadii la barxo kelimada tawxiidka hadii la barxo waa u dhamaatay ayadii ma kelimada tawxiidka ma waa inay saafi ma kelimada tawxiidka marka lama barxi karayo waa inay nadiif tahay wax kale aysan maarta soo dhex gelinin قلبي كسو بحث وإنه إلهي صافي وياها إله كلي أرجيده سبحانه وتعالى وإن شركيات يا كفريات إن لقوا برحينين وإن وحيالك كلام مارتين لقوا دارينين لقوا قوشينين وأنا دليل كده ستوصل نقول كده دونا مركا محا كلمة توحيد كهدي له برحي محا لقوا برحي كراه شرك صح ما برح واحد كسب برح بيليين مركا واحد لقوا داري كراه لقوا برحي كراه وشرك أما الشرك هنقول الشرك الأصغر أما الشرك الأكبر هنقول شرك من نوع ويها من نوع يريه كان أكبر كاهد دين توتك كسارة كان أصغر كان كما صار وقفكو هدي أو سن اعتقاد حلال المديس صح ما هدوس اعتقاد حلال المديس كسار الماي شركة أصغر ابن القيم وحو استعمالها كيسير الرياء
محو لي أرجع كيسير ريا محو استعماله لأنه واحد شرا رياضة أو منافقين أيضا واحد عيك لين جارته هركي منافقين تو كلين جارته ريوه وجارو قفku wasan daacadu ilaahay ilaahay dadka istuusa laga sheego iyo maartay waxyaalo kale ujeedo kale u kaliya marka shirkiga waynu meesha ka baxaa shirku asghar aw akbar shirka asgharkaahi waa istuuska iyo laga sheego iyo ma garanaysaa dadku soo yiraahdeen shuhuro iyo caan bax oo kale ma garanaysaa qof la yaqaan noqo oo kale wixii lamid ah cibaadooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa musiibad maartay barxiisa daacadnimadii bay barxaysaa ama sida gaalnimada weyn oo ah in maarta ilahay cibaado cid kale ugu dartid subxaanahu watacaala aad cibaadaysa cid kale la caabudo ama la barisid ama la kaalmaysatid ama garanaysaa u gowracdid ilahay cid aan ahayn ama saddex cibaada ugu dhowaa gowracaan laanna shirkiyaadkii kamid tahay waxaa lagu barxi karayo khatarta masalaas dhinacaas leedahay iyaduna shirka dhinacaas oo kale ah marka waa inaad iska hubisaa arrintan almuhiim ana ikhlaaska qofka ikhlaas miya mase ma ahan anagu ma ogaan karayno nabigana calayhi salaatu wasalaam lama amrinin muuminiinta lama rabin qofka asagaa loo daayay ikhlaaskiisa qalbiga anagu eragaas hadduu ku yiraahdo waa qofka waa laga qaadanay waa laga aqbalay munaafiqiin baa joogeen waqtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bin ubay salool waxa weeyaan gabar muslimada uu qabay soo sax maaha maarta munaafiqiintu gabdha muslimiin ay qabeen ayagoo munaafiqiin ahay gabdha muslimiin qanoo nikaaxiina waa baatil lama dhihinin ma garan muslimiinta kamid ahay safka hore ku jireen limaada lianna quruuta lama dilaacin karo cidda waxa ku jira ilaahay baa garan karaya subxaana watacaala anaga waxaan xukumaynaa qofka wax nooga muuqda soo ma ayadka qur-aankan waa arki doonaa noo soo socda qofka wixii nooga muuqdaan xukumaynaa hadduu laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah uu yidhaahdo qofku maaragtay uusan marka banaanka kufri ku dhicinin waxa intaas u daynaa asaga rabbigiis baan u daynayna ma garanaysaa dhaxalka waxbay ka dhaxlayeen waxa weya gabdhihii islaamka ay qabeen ma garanaysaan waa loo nikaaxinayey waa laga doonayey waa laga doonayey waa la derisay waa la cunayey muslimiinta ku tireen safka hore ku jireen xukunka islaamka la siiyey daahirka xukunka waxa la xukun daahira laakiin xaqiiqadu siday tahay qalbiga ayaa og ilaahay aakhiray u taallaa annaga waxaan la dhaqmaynaa qaacidooyin sharci oo daahirka naga ma garanaysa laakiin ikhlaaska inta soo qaadano ma garanaysa toosh aan ku ifiyo bal inaa ikhlaas qalbiga ku jiro odhan maayo قلب خلاص قلبي كجرا ميادو قرك فلا شققت قلبه ونبي كير من قلبي صد الله عيسنك نتو لا اله الا الله ايو يا رسول الله داعتكم اهين اوكي داعت ما اهين هذو ما واكرت داعت ما اهين انا ما واكر طبعا ما نبي حكوا اشققت قلبه وربارت قلبي مياد لا اوبريشن ما كنت سميسي اتفير سو بارت بالمارت لانه ايمان كيس وقلبي كيس ايو كجرا دوش صلاه لهذا كان inaad xukuntid maarta falkiisu xataa hadduu qalbiga mu'min ka yahay laakiin fal kufri aad dusha kala yimaado xujadii lagu ogo waa lagu xukumaya nigna waxa weeyaan ninkii xoola xaday maxkamad la keenay maartay anagu baari mayno maxaa waa fiirina waxa weeye shuruuda sharciga waa laga helaa soo maaha nunafid caleyhi lxukm xukunkaa lagu fulinaya laakiin hadduu lahay xujo kale iyo hadduu maartay sabab kale laha rabbi u taallaa subxaana watacaala ana daahirkaan xukumayna masaa-isha cilmigana waa saas weeyaan marka kelimada ikhlaaska qalbigiisa qofka ma ogaan karayno waxa ku jira waxaa loo jeeda qofka asaga laftigiisa looga baahan yahay isaga is yaqaane bal insaanu calaa nafsihi basiira qofku naftiisa isaga yaqaan inuu isbaaro inuu ikhlaas uu daacad ka yahay waa yahay alikhlaas almunaafi lishirk waa ikhlaas iyo daacadnimo iyo saafinimo oo almunaafi meesha ka saaraya lishirki shirkiga wadaajin ka saaraya meesha yani haddii wadaajin timaado ikhlaas meeshu ka baxaya وأسطورية الرابع الشرط الرابع يعني شرط أفراد الصدق ورن ويان وينه رن كشيء وقال وعد عكر قف كانوا لا إله إلا هو يرادا لكن أو جيم عياري هو اشرب شكرا واحد عكر لا إله إلا الله تيرادا إنه جيم عياري لا إله إلا الله ويرادا waxaad dhici karaysa maartay maanta adduunka waa isu furmay biil kiltoona arkaya la taagan mid laa ilaha illa maxamed rasul iska dhahay ma ka run ma ah daacad kaba waxa weeyaan waa mujaamala inuu yiraahdo laa ilaha illa allah laakiin daacad run uusan ka ahayn islaam gelin mayso marka doosan aysan jirinin maarta run aysan ka ahayn eray sahlan oo maanta la dhihi kara weeyaan cid kasta uu oran karayo marka qofka waxaan uga jeedaa kelimada oranaya anfacayso waa inuu yahay run sidoo af carabka ka dhahaya waa inay qalbiga ka timaado aysan ka imaanin carabka oo kaliya eray carabka laga yiraahdo ahayn laakiin haddii qofku laa ilaha illallah laa ilaha illa maanta uu leeyahay laakiin qalbiga uusan ka rumaysnayn aakhira badbaadi mayso anficina mayso islaamna kusoo geli maayo maarta ilaahay dembigiisana ku dhaafin maayo wa ilaa munaafiqiinta ayaa muslimiin noqon lahaayeen fasama muslimiintu waxa weeye laa ilaha illallah afka ka oranaya innaka la rasuulullah bilayhi
markaas ilahay wallahu yaclamu innaka la rasuul wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun. ilahay markhaati ku ya munaafiqiin been sheegay erayga afkooda iyo qalbigooda isma laha, laakiin ilahay baa garan karaya subxaana wa tacaala, qalbigooda garan karaya. marka eraygu markuu anfacayo kelimad tawxiidka carabka laga oranayo waa inuu qalbiga iyo carabku isleeyihiin, wa ilaa hadday kala duwan yihiin nifaaq baa la yidhahda maarta. nifaaq bay noqonaysaa. afkana wax kaleeyahay, qalbigana wax kale ka sheegi doon suu noogu keeno daliilka ma garanaysaa. markaas asidqu waa run inay tahay almunaafi meesha ka saaraya lilkadibi been. been maxaa la yidhahdaa? waxaad sheegaysaa sidaa jirta inaysan waafaqsanayn. waxaa la yidhahdaa hadalka aad leedahay iyo waxaad samaynayso waxaad sheegayso cadamu tadaabuq lilwaaqic, sida jirtaa inaysan waafaqsanayn, waa kadib weeyaan. sidqiguna waa cagsigiisa oo shaygaad sheegaysaa waa inuu xaqiiqada waafaqsan yahay, jirta sidaa jirta waa inuu maarta waafaqsan yahay. lilkadib almaanicu ee diidaya min annifaaqi munaafiqnimada diidaya waa sidq. almunaafi lilkadib kadib beesha ka saaraya, almaanicu ee diidaya min annifaaqi munaafiqnimada. munaafiqnimadu waa laba wejile. nifaaqa waxaa loo yaqaanaa asalka luqada carabiga min naafiqa alyarbuuc ayaa laga keenay. maxaa la yidhahdaa dabagaale iyo ma garanaysaa gabalday iyo maxaa kaloo la yidhahdaa rays iyo magacaal fara badan soomaalida u yaqaana soo maaha. maarata yarbuuc baa la yidhahdaa, carabtu jarbuuc bay yidhahaan. waa yarbuuc asalka. marka waxa weeyaan cirku fiiriya soo maha. halkaasi wuxuu leeyahay godad badan buu leeyahay. waxa weya markuu god samaysanayo, godka wuxuu sameeyaa inta qodo ayuu wuxuu u sameeyaa mooliheedyaal baa suurtagalyaal badan. xaggana irid baa ugu yaal, xagga irid baa ugu yaal, xagga iridaa ugu yaal, xagga iridaa ugu yaal, xagga iridaa ugu yaal. waxa weeya intaasoo wuxuu leeyahay meel uu ka fakado ka baxuu leeyahay. soo ma haddaad soo eryato ee uu daf godka kaa yiraahdo waxaas leedahay godka ku celiyo qod dabadaad u ka baxaa. laana waxa ugu yaala god kala meesha ugu yaala. marka godkiisu wuxuu leeyahay suurtagalyaal fara badan buu u sameeyey intaasoo meeloo laga baxo. marka munaafiqa asalka intaan qur-aanku isticmaalinin godka xayawaankaasaa loo isticmaali jiray. yarbuuca godkiisa ayaa la yidhahdaa naafiqaada yarbuuc. kabacdi waxaa lagu tashbiihiyey munaafiqa 100 god buu leeyahy, 100 iriduu leeyahy. soo sax maaha. maalinba weji buu leeyahay. gruubkuu la socdo maarata la diin yahay, gruubkuu la socdo la nooc yahay. maalinba waxa weeya kalar buu wataa, maalinba waxa weeyaan mawjaduu saaran yahay. soo sax marka waxaa loo bixiyey markaa bahalkaas godadkiisa oo kaloo lamid yahay. munaafiq nifaaq marka qur-aanku saas u isticmaalay. dad oo maaratay xarig qabta aan lahayn, diin qabata ma laha, nas qabta ma laha. calmaaniyiinta maanta joogtaa in fara badan wax u dhaqmaan oo kale ma garanaysaa. waa sirsiraya muslimiinta maarata kuqoos lebiso meesha u tago u akaaw. wax waa masala khatar ah weya masaladaas. qofku waa inuu mabda'a leeyahay, caqiide leeyahay, diin leeyahay. laakiin diintiisu hadday noqoto maaratay bolotic iyo siyaaso iyo maalinba roob u gediyo, waxa weeyaan qofkaasi waxa weeyaan waa masala qof khatar ah ma garanaysa, asaas aan ku taagnayn. walidaalika ayaa qur'aanku maaratay waxay xadiistu aad uga digeen noocaas oo kale. munaafiq ka ciqaab badan yahay, gaalka waa ka khatarsan yahay, leanna waa ka shar badan yahay. waa ka shar badan. gaalku waaba cad yahayo nin dee maarata banaanka wixiisa dhigtay iyo nin maarata nifaaq isticmaalaya oo intaasoo xarifnimo maarata reer magaalama yidhahdeen soomaalidu marbaad nooc u gedinaya. waa ka khatar kana khatarsan. saa darteed buu ciqaabka ilaah ugu badiyey subxaana wa tacaala. marka waa asidqu almunaafi lilkadib almaanicu ee diidaya min annifaaqi munaafiqnimada diidaya. alkhaamisu shardiga shanaadi almaxabatu lihadi lkelima waa almaxabatu jacayl la jeclaado لهذه الكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قفك وحويا لابد أن تتملك قلبه سواء أنه تعلاذ كلمة اسمها قرنيسا محايا أعظم كلمة يقال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء. كلمة التوحيد هو أفضل كلمة الكلمة الطيبة وكلمة الطيبة هو راكسن ويان إله سبحانه وتعالى عنده دور وافجه جل وعلا. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الكلمة العظيمة مارتي خصوصا لو سود دجي إلهي سبحانه وتعالى كلمات قفك وإنه تعلاذا مركو تعلي هنا وإنه بضياه يعني الشيقتان كذا وإنه بضياه توحيدك إنه مارتي كنت توحيد صدو وحي أوراني علماء وحي إليهن أعظم الدعاء مد أقوين وأعظم الثناء ولا إله إلا الله محمد رسول الله. وكلمة ده سويان أمان مد أقوين نصوصنا ويكون تصنع يسمارت لما أنتهت. ولذلك إلهي سبحانه وتعالى قدام بيكون دافع ظروفه أذاك مركي تشوكتوا وكلمة إله لقبر سبحانه وتعالى. نبي الله يونس عليه السلام
في وقت الظلمة وفي وقت الشدة كلمتك لكم مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سمع كلمة توحيدك نبي الله آدم عليه السلام ظروف أدق بركة كورتمت وكلمته كل واقع مارت لا إله إلا أنت سبحانك إني لا إله إلا أنت محيد قال لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ونكون من الخاسرين لا اله الا نعم وكلمه التوحيد كاي كل واقعيا ويان marka waa kelimadan كلمه اساسka asalka u ah maartay cibaada ilaahi subhanahu wa ta'ala qofku inuu jeclaada marka qalbigiisa ay qabsataa almahabbatu li hadhihi alkalima wa kalimadan jaceelkeeda iyo walima dallat waxay tusiday عليه كلمة توحيد وعظمة إلهي سبحانه وتعالى يكليتان كعبادة لو كلي سبحانه وتعالى ولما دلت عليه من الشرع وحي تصدق الشرع ولما دلت عليه من الأحكام ولما دلت عليه من العظمة وين كأي تصدق كلمته وفق إنه أتشع لاضه والسرور بذلك أرن كأنه كفرحه يعني غفكوا انه كلمه التوحيد كإلهي انه كان دغ موحدين تكفر حديد ويان الى كلمتك وافجيه سبحانه وتعالى ان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولولا فضل الله عليكم ورحمه ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء الهي سبحانه وتعالى اشتبهيس يا دورشديس يا اختيارك لما واحد نقطه الى ما كنت دورته سبحانه وتعالى والا امسا مارتي اهل الضلال laga dhigo كلمه توحيدka laga xarimay imisa ma garanaysa ay كلمه توحيدka garanaya hadana ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajin inay saafi Allah uga dhigaan subhanahu wa ta'ala marka adiga hadii lagu waafajiyo ergaas waa inaad garatahay waxa loogu farxo inay tahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nicmo uu ku siiyay nicmatul ijtibaa inuu kalimaan ku doortay waxa la midii ma jirto ma garanaysa lagu siin laha adduunyo aakhiro ma jirto ma garanaysa wana marka ku farxada السادس مسألة اللحات الانقياد وهجانسا له هجانسمه بحقوقها بحقوق التوحيد كلمة التوحيد كهي حقوق بيلادها الكلمات دو ما هالأري اللي سكير هذا لكن وأري أثر إيراد لويا وأري مراكة تجي ويا مراها أي كتجيسو حقوق أصلا كل شيء جاية إيلادها حق إيلادها وحكر عليا وحل لازم كهو مار كرت مية وهي الأعمال الواجبة وأعماش واجب كوي وحقوق ديدو وأعماش واجب كإلهي سبحانه وتعالى كل جسد العبديس كل العبديس وإن أضمارتي هذا إلهي كعبده أعمال بات كعبديسا صح ما إلهي وحول وعبدنا وأعمال ويا أعمال صلاة صونك سكدة مقرنس أعمال سمعنا إنه هي عبادتنا وعبادة الله كعبدنا سبحانه وتعالى سجود هذا الركوع هذا وحقوق لا إله إلا الله لا إله حقوق ذي ويان واجباتك أعمال وأمري إلى كل العبد وإلى العابدة يسود ليس أصلا يسود يبته سوق أمرياشة هذه وحويان كلمة مارت مره هذه ويا كلمة مره هذه ويا مرة قفكوا إنه مرها كلمة داسي مارتي أو سوتاجا أو بصفة عروة أو مارت وقبطة وهي الأعمال أعماش ويان حقوق ذو الواجبة واجبتي ما قرأسها أعماش سوى أوجتا إخلاصا لله مفعول لأجل كده إخلاصا لأجل إخلاص درادي ده يصافق قرين إله لله لله صافق قريه إيه وطلبا لأجل طلب درادي أدون يسو لمرضات إله لأجل سبحانه وتعالى مركز أعماشا سمين يسو ما دام إلهي سبحانه كريه عابده يدو إلهي أتكو حرانتا يا قلبي أكو حريه يعني عمل كاقو تشيدك لكماله هديد وحويان إلهي رالي أجل بكو دون يسا إلهي بغن صافق وقد سبحانه وتعالى كلمة ذات مركز حويان كلمة توحيد كان نور كده وتاسويا عاو قبل يسا لله وإلا حدادا لله لغير الله أنوضه معناه حويا شرك يا بصوت قال ما ماشي حويا وبرحنتها مركز معناه وياه وإنه لله نوضه وإن طلب لمرضات أما لطلب مرضات البشر أو طلبا للدنيا أو طلبا لحظوظ النفس أو طلبا لشيء آخر شيء كلا دوني وجدك كلا جيم كلا لا ذا حويا كلمة دي توحيد كهي صافي كوما صما وحق داوع بقى جاري كل ما إنه قالوا بيسا لكن ما حنا داوع بقى كجاري وهذا قال قفكوا البابا أسرع أي أسجران كريه مركوا إنه نقضوا قفكوا عماشي سا إخلاص طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. السابع من ثلاثة طبادي القبول بفتح القاف هذا شيء وحوي قبول لما يرى هذا قبول بفتح القاف قاف طول كردكو ويان القبول وأقبلتان ييرتان إن كلمة داسي آد أقبشت آد مقرنسا يشو آد مارت رالي كل نقطه أي كو قنعيسو مع قبولك أقبلتان كمعناه معنى وجهنا وإن هذا الكلمة دا دينين وإن هذا الكلمة داسي وحكرنا الشيبة هذا كوكو عن صيرين وإن الإعراض كفر الإعراض ماشي أوصل إيمانين تصعمها القبول المنافي ماشي كسارية للرد علتان لرد شيئا من الدين شيء دين تكمده للرد شيئا من حقوق لا إله إلا الله حقوق لا إله إلا الله شيء كمده
وإن هذا المارد كوكا عن سيرين ما قرنيسا لكن آد أقبشه إلهي سبحانه وتعالى وعليك إناد كجاب سود أود ويسوي حيلك كجاب بشر باته لكن ما كجاب يسوي وقتها إناد كجاب سي أي سنة هين ديد ما أديد ما شيء إناد ديدان والنوع إناد كفتانا والنوع عليك كريس وكف كريس قف بشر باته لكن وإناد مسنتا إناد مقصرتا إناد كجاب سي ما قرنيسا سير لو تلقى الأذان جارنين اسكو دييسو هذه wax ka xumaadana ilaahay u soo laabanayso subhanahu wa ta'ala laakiin kala duwanta qof maanta shaygan raalku inuu tuuray oo nacay iyo naata shay qof dhaadhacay oo garanay inuu dhaadhacay kala duwan yihiin Soomaa labada marka waxa weeyaan waa inay shuruudaasi ayay leedahay waxay ugu baraarujin doonaa waqtiga insha Allah ta'ala akhuna Hamza iskale marka ya u dhamaado miya khayran insha Allah u dhamaado laakiin آيات كوين وين سود الدجنا إن شاء الله تعالى